بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يلكسو دبادة قضبادة ورارك جالك نديني لتيفي قدور كورونا وحانا كمد نقونيا shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ka furmaya dalka Qatar madaxweynaha koonfur galbeed oo gaaray magaalada Baraabe ee gobolka Shabeellaha Hoose saraakiil gaartay deegaan laga wareegay ururka Ahlusunna wal Jamaaca wasiir Sabriye oo dhaqanka Ahlusunna u sheegay mid u muuqda mid dib u noqosho ah ciidamada dawladda oo xiray wadooyinka soo gala magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug agaasimayaashii TV-ga qaranka iyo Radio Muqdisho wakaalada wararka Sona oo xilalkii laga qaaday maxkamadda ciidamada oo xukuntay rag loo haystay qaraxyo dawladda oo ku dhawaaqday qorshe looga hortagayo fatahaada dawladda Soomaaliya oo ciidamo geysay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena channelka Daynila TV ugu door corona intaan gudagelin qodobadaas oo faahfaahsan marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan channelka subscribe saartaan sidoo kale gambareelka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeyay wararkeena u soo dhacaan haatan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ayaa ka furmay dalka Qatar magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa waxaa lagu wadaa in uu ka furmo shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira ururka iskaashiga Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC shirweynahan oo ahaa mid horey loo sii qorsheeyay ayaa waxaa looga hadlayaa sidii loo taageeri lahaa Soomaaliya waxaana wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ay shaacisay qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi looga hadli doono wasaaradda ayaa qodobada waxa ay ku sheegtay arrimo ay ka mid yihiin xaaladii ugu dambeeyay ee Soomaaliya sidii loo kordhin lahaa taageerada ay dalalka Islaamka siiyaan dawladda federaalka Soomaaliya si ay u xoojiyaan deganaanshaha iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya wargeyska Al-Sharq ee ka soo baxa dalka Qatar ayaa qoray in dawladda Qatar ay dhammaan casuumaad u dirtay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ururka iskaashiga Islaamka isla markaana kulankooda ay diiradda ku saari doonaan fatahaadii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya kooxda isku xirka Soomaaliya ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa waxaa la aasaasay bishii December ee sanadkii 2007 waxaana shirkoodii ugu horeeyay ee magaalada Muqdisho ku yeesheen 27 bishii October ee sanadkii 2018 Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maalmo ka hor waxa uu ku baaqay in Soomaaliya laga soo taageero wax u qabashada dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiyada si gaar ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa gaaray magaalada Baraabe ee gobolka Shabeellaha Hoose wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa gaaray degmada Baraabe ee caasimadda dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya balse aysan wali u soo guurin oo ay si kumil gaar ah ugu shaqeeyaan Baydhabo wafdiga madaxweynaha koonfur galbeed ee Baraabe ayaa waxaa garoonka diyaaradaha degmada Baraabe ku dhaweeyay maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi wararka ayaa waxa ay sheegayaan ujeedka madaxweynaha koonfur galbeed uu u tagay Baraabe ay tahay sidii uu xariga uga jari lahaa garoonka diyaaradaha Baraabe ee dib u dhis lagu sameeyay wafdiga madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cabduqaadir Shariif Sheekh Maye wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda iyo mas'uuliyiin kale weli lama shaacin muddada ay halkaasi sii joogi doonaan wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha koonfur galbeed walow ay halkaasi u gaarayaan xarig jarka garoonkaasi lamana sii saadaalin karo in ay socdaalkooda ku hakin doonaan degmada Baraabe ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo in ay sii wadi doonaan saraakiil ayaa gaartay deegaan laga wareegay ururka Ahlusunna wal Jamaaca degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa ka mid ah deegaanada ay horey gacanta ugu hayeen Ahlusunna balse ay la wareegeen ciidamada dawladda ayaa waxaa gaaray saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya saraakiisha taliska qaybta 12aad sida taliyaha qaybta General Cabdicasiis Cabdilaahi Qooje iyo taliyaha guutada 15aad General Mascuud Maxamed oo uu weheliyo agaasinka nabad sugidda gaarka ah ayaa gaaray saldhigga degmada Gurceel iyo goobo kale oo ammaankooda ay la wareegeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya
Saraakiishan ayaa waxa ay kulamo la qaadan doonaan hoggaanka dhaqanka ee degmada Gurceel iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee degmadaasi. Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa dhaqanka Ahlu Sunna ku tilmaamay mid dib u noqosho ah. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa waxa uu eedayn kulul u jeediyay hoggaanka sare ee Ahlu Sunna wal Jamaaca, isaga oo sheegay in ay hor taagan yihiin dhismaha Galmudug. Waxa uu sheegay wasiirka in waxa hadda ka muuqda deegaanada Galmudug aysan ahayn kuwii ay la soo bilaabeen hoggaanka Ahlu Sunna, isla markaana aysan ka turjumaynin arrimaha masiiriga u ah Galmudug. Waxa uu ku eedeeyay hoggaanka Ahlu Sunna in ay wadaan waxyaabo keeni kara dib u noqosho, waxaana uu ugu baaqay in ay joojiyaan caqabad uu sheegay in ay Ahlu Sunna ku yihiin dhismaha Galmudug. Ugu dambeyn, waxa uu sheegay wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya in dowladda ay diyaar u tahay in ay xaliso tabashada ay qabaan, ha yeeshee aan laga aqbalaynin in shuruud ku xiraan dhismaha Galmudug. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xiray wadooyinka soo gala magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug. Wararka laga helayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Ahlu Sunna ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ay uga baxayaan magaaladaasi. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Ahlu Sunna ay baneeyeen xarunta dowladda hoose ee degmada Dhuusamareeb, isla markaana ay la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Ciidamada dowladda ayaa waxa ay sidoo kale ay xireen dhammaan wadooyinka gala magaalada Dhuusamareeb, waxaana hoggaanka sare ee Ahlu Sunna ay xilligan ku sugan yihiin xarunta Inji ee magaalada Dhuusamareeb. Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo qaybaha bulshada kula hadlayay Gurceel ayaa sheegay in waxa ay hadda arkayaan aysan ahayn waxyaabihii ay kala heshiiyeen, isla markaana ay yihiin dib u noqosho. Agaasimayaashii TV-ga qaranka, Radio Muqdisho iyo wakaaladda wararka ee Sona ayaa xilalkii laga qaaday. Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu xilalkii ka qaaday agaasimayaashii TV-ga qaranka Soomaaliya, Radio Muqdisho iyo wakaaladda wararka ee Sona, isagoona magacaabay agaasimayaal kale. Wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka Maareeye ayaa waxaa xilalkii agaasimaha TV-ga qaranka looga qaaday Liibaan Cabdi Cali, iyada oo xilkaasi loo magacaabay Faarax Salaad Daraar. Agaasimihii wakaaladda wararka Sona ayaa xilkii laga qaaday, iyadoona xilkaasi loo magacaabay Cali Cabdiqaadir Cali Mekel. Sidoo kale agaasimihii Radio Muqdisho Cabdifitaax Daahir Jeete ayaa xilkii laga qaaday, waxaana xilkaasi loo magacaabay Yaxye Cali Faarax. Maxkamadda ciidamada ayaa xukuntay rag loo haystay qaraxyo. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukunno kala duwan ku riday rag loo haystay qaraxyo ka dhacay duleedka bari ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo dhowaan maxkamadeyntooda lasoo gabagabeeyay. Cabdikariin Maxamed Maxamuud Xuseen Siisi, Cabdiqani Cali Maxamuud Cali Buneeste, Cali Muxudiin Abshir Cali Kuulow ayaa loo haystaa ka mid ahaanshiyaha Al-Shabaab iyo in ay si gaar ah u qaabilsanaayeen aasidda miinooyinka lagu qarxiyo gawaarida, gaar ahaan deegaanada bariga ku teedsan ee caasimadda Soomaaliya. Eedeysanayaasha koowaad iyo labaad ayaa si gaar ah loogu eedeeyay ilaa iyo 9 miino oo ah nooca gacanta laga hago oo ay siyaabo kala duwan loola eegtay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, halka eedeysanaha saddexaad uu ahaa keedhayaha agabka loo adeegsado qaraxyada, isaga oo gambad ka dhigtay harqaan lagu talo maryaha duugga ah. Cabdikariin Maxamed Maxamuud Xuseen Siisi, Cabdiqani Cali Maxamuud Cali Buneeste ayaa laga soo qabtay xaafadda Suuqa Xoolaha 29-ka bishii 6 ee sanadkan, waxaana xooraansi dheer kadib u suura gashay ciidamada amniga in 6da bishii 7 gacanta ay ku soo dhigaan Cali Muxudiin Abshir Cali Kuulow loo yaqaano, oo ahaa keedhayaha labada sane ee hore. Agosto 8 ayaa eedoodii lagu soo wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta, waxayna xilligaasi codsadeen in loo dhaadhiciyo xabsiga dhexe si ay u dhammaystirtaan howshooda baariseed ee la xiriira dembiyada ay u xiran yihiin.
waxaana xilligaasi garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad u direen xabsiga dhexe garsuge ahaan. Xafiiska xeer ilaalinta ayaa 12 bishii tagtay codsaday in la mudeeyo dhageysiga dacwadda ka dhanka ah eedeysanayaasha kala ah Cabdikariin Maxamed Maxamuud Xuseen Siise, Cabdiqani Cali Maxamuud Cali Buneyste, Cali Muxudiin Abshir Cali Kuulow, waxa ayna dhammaantood ku soo eedeeyeen la shaqeynta Al-shabaab iyo in ay si gaar ah ugu diyaarsanaayeen dhigidda miinooyinka gacanta laga hago. Xafiiska ayaa maxkamadda hor keenay qiraallo laga qoray labada eedeysane, 2 markhaati iyo baarihii kiiska oo isna maxkamadda ka hor sheegay natiijada baarista hay'adaha amniga. Intii ay maxkamadda socotay ayaa loo oggolaaday eedeysanayaasha in ay ka jawaab celiyaan eedaha ay soo dirayaan xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee sida gaarka ah loola xiriirinayo. Cabdikariin Maxamed Maxamuud Xuseen Siise oo ah eedeysanaha koowaad ayaa sheegay in hadda ka hor uu u soo galay gacanta ciidamada amniga isagoona xilligaasi tababar la xiriira sida loogu dhakro miinada gawaarida ku soo qaatay gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana uu maxkamadda ka hor sheegay inuu Al-shabaab ku biiray Sebtembar 2. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday qorshe looga hortagayo fatahaadaha ay sameynayaan webiyada Soomaaliya maraa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in ay soo laabteen fatahaadaha uu sameynayo webiga Shabeelle ee mara gobolka Hiiraan, isla markaana loo baahan yahay in laga hortago. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyada oo la kaashanaysa dowladaha dariska la ah in ay la imaanayso qorshe looga hortagayo fatahaadda webiga maadaama dhibaatooyin fara badan ay ka dhasheen. Ugu dambeyn, waxa uu sheegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay noqdaan kuwo is-cafiya sidoo kalena is-caawiya. Madaxweynaha ayaa shalay gelinkii dambe waxa uu booqday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo badi dadkii deganaa ay ka barakaceen kadib fatahaadda webiga. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo geysay degmada Gurceel. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa ay ciidamo geeyeen degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaas oo waaberigii hore ee saakay ay isaga baxeen ciidamo ka tirsan Ahlusunna wal Jamaaca. Ciidamadan booliiska ah ayaa la wareegay ammaanka guud ee degmada Gurceel iyaga oo fariisin ka sameystay saldhigga booliiska Gurceel. Dadka degmada Gurceel ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay dareemayeen cabsi ku aadan in dushooda lagu dagaalamo maadaama dagaal kooban ay degmada Gurceel kula wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya. daawadayaal guud ahaan warkii aad kala socoteen janalkeena Daynila TV halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa, balse marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad janalka ku soo biirtaan, sidoo kale ama mar labaad aan iraahdee oo ugu dambeyn idinka dalbanaynaa in aad janalka ku soo biirtaan, sidoo kale subscribe saartaan, gambaleelkana aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan. waxaan si gaar daawadayaal idiin ballan qaadi doonaa in aan isha ku hayno wararka la xiriira arrinta Galmudug, iyadoona ay jiraan xiisado ka aloosan deegaanada Galmudug sida magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo lagu wado in ay ka dhacdo soo xulista xildhibaanada Galmudug iyo doorashada guud ee madaxtinimada maamulkaasi Galmudug. sidoo kale kama marna xiisadani degmada Gurceel oo fadhi u ah hoggaanka sare ee Ahlusunna wal Jamaaca uu hoos tago Sheekh Shaakir, madaxa xukuumadda Galmudug. daawadayaal wixii wararkaasi ku soo kordha wararkeena dambe ayaan ayagoo faahfaahsan idinkugu soo gudbin doonaa. intaan warka xiga kulmi doono annagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.